Bismillahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada maanta waxaan gelaynaa cashirkeenii saddeedaad ee dialogue ama conversationka. Maantana waxaan baranaynaa wax yahaa running errands. Running errands waa howlo maalmeed qofka wixii maalinkaas u bursanaya ama maalinkaas inuu qabto u baahan yahay ama uu qaban lahaa. Marka inta waxaan ku haysanaa marka laba qof ah hotel receptionist iyo gabar yar Caasho. Hotel receptionist waxaa la lahaa reception sida noo naqaano waxa waaye qofka markuu hotelka soo galayo meel lagu qaabilaa qof joogo qofka qaabilaha ee hotelka qof ku qaabilayo ayaa receptionist la yiraahdaa. So inta badan xogta banaanka iyo gudaha saahayo. So labadan way is wareysteen waxayna iska wareysteen waxyaaba soo socdo. So hotel receptionist markay Caasho ku soo aaday wuxuu yiri hi there, how can I help you? Yani maxaan kugu caawiyaa? Hi there, how can I help you? Qaabs nooceen ku caawiyaa? Then Caasho waxay tiri well, I'm in town visiting for a few days. Yani magaalada ayaa waxaan ku joogaa booqasho maalmo kooban ah ama maalmo tirsamay ama maalmo yar ah. And I need to get some things done while I'm here. Waxaan u baahnay tiri in waxyaabo la ii xaliyo inta aan halkan joogo. Yani inay baxdo ma rabto. So waxay rabtaa in wax loo soo qabto ayna meesheeda joogto. I need some things done while I am here. So for example labay noqon kartaa ama inay shayga inay ninkan u dhiibto rabto oo loo soo sameeyo ama in loo tilmaamo. So tan markaan dhahana in loo tilmaamayo meel ama loo sheegayo while I'm in here waxaan ka soo qaadan karnaa inay intay wali booqashada magaalada ku joogto gudaheeda inay wax soo qabsan doonto. Waxay iidaha markaan aragna waxay yihiin. Then hotel receptionist wuxuu yiri sure. Ha yes amal way sure. What do you need? Maxaad u baahneed? What do you need? Maxaad u baahneed? Then Asha said I need to get my hair cut. Waxaan u baahanahay timaha in la ii habeeyo ama la ii gagaabiyo. I also need to have my new pants hemmed. Waxaa kaloo u baahanay tiri sarwaal hoosgashiga aan soo iibsaday in afka la iga harqaamo. Hemmed means hem waxaa la yidhahaa meesha marada laga laabo. Micnaha waxaa laga yaabaa inuu fiidbaxsan yahay kadib in lasoo laabo baahan yahay. So waxay tiri I need to get my hair cut and I also need to have my new pants hemmed. Waxaan u baahanay tiri madaxa in la ii habeeyo la ii gagaabiyo. Waxaa kaloo u baahanay tiri I need to have my new pants hemmed. Then receptionist wuxuu dhahay okay. Here is a map of the city. Kani waa gariirad ku tusinaysa ama ka hagayso cityga ama caasimadda. There is a good hair salon here. Halkan dhow waxaa ku yaalo yiri a good hair salon. Salon ama salon madaxaad ku hagaagsan karto. Which is just a block away. Kaasoo naga xigu yiri hal block. Block waxaa la yidhaha hal looto. Looto Soomaaliya saas u yaqaanaan. Ama guriga ku xiga guriga ku sii xiga. So hal loota idin dhaxayso. And there is a tailor right here. Yani halkaana waxa ku sugan uu yiri asoo u tilmaamaya a tailor. Tailor marka waa harqaanlaha. Is there anything else? Yani wax kale miyaa jiro dheeri ah? Waxay tiri yes. Ha. I will need to have my car serviced before my long drive home. Waxaan u baahnay tiri baabuurkayga in la service gareeyo. Service waxaa la lahaa la dayactiro, la dhuujiyo, garaasa la mariyo, oilka laga bedelo inta aanan garin safarkayga dheer aan guriga ku aaday. My long drive home. Then the receptionist wuxuu dhahay no problem, dhib ma lahan. There is a good mechanic a few blocks away. Waxaa jiru yiri nin mechanic ah oo aad u wanaagsan. Yani lootooyin yar ayuu naga fog yahay. Yani meelo aad saas u fogaan ayuu naga fog yahay. Aan dulmarno intaanan new words u galin ama vocabulary-ga. Receptionist, hi there, how can I help you? Asha, well, I am in town visiting for a few days and I need to get something done while I am here. The receptionist, sure, what do you need? I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed. Okay, here is a map of the city. There is a good hair salon here, which is just a block away. And there is a tailor right here. Is there anything else? Yes, I need to have my car serviced before my long drive home. No problem. There is a good mechanic a few blocks away. So, waxaad fiirisaa few iyo a few. Few marka la yiraahdo ama eeda ka reebo waa few wax kooban oo tirsamaayo. Laakiin a few means wax aan saas ahayn. Yani almost nothing. Okay, new words kan galna markan. New words ka meesha ku barnayn maxaa ka mid ah? Town. Waxaa waaye magaalada ama city ma dhihi kara laakiin town Muqdisho is a town. Is a city is a town. So town caasimadna shayga muusan gaarin. For example hadda Baydhabo is a city is a town. So Baydhabo town, Kismaayo town,
town marka waa magaalo weyn. Visiting booqasho. maxaa kale then I need to have a haircut. Haircut tima jare ama timaha la gaabsado ama la jarsado. Pants waa hoosgashi. Hemmed waa tolitaan ama afka laga laabo shayga la harqaamo. Map waa gariirad. Map saloon. Hair saloon waa saloonka timaha lagu quruxsado. Block waxaa waaye looto ama guri. Tailor harqaan leh. Car service yani service waa hagaajin ama dayactir ama shayga oo la hagaajiyo. Drive waa kaxayn. Home waa taqaanin waa. Then mechanic waa makanika ama ninka farsamayaqaanka ee baabuurta hagaajiyo. tani kuna tadaba xiiso waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.